يا بوليس كان والله والله ما كان ونقوي ونقيا تري صدق ما صعده بس واقع حلال كوا كلا soo socdayna away gaariga waxa taas ka sii daran isla galabtay baadiyaha deegaanka Carmo reer miyiga ku sugan waxa ay shaaciyeen oo ay ooda ka qaadeen in kumanaan Itoobiyaan ah oo soo bilowday aroortii ilaa iyo mataqaanay galabkii ilaa casarliiqi ay dhulkaas marayaan iyagoo tarab u soconayo ayna ku wajahan yihiin buuraha xisaabtana ku darso oo raggan baabuur gaadiid waraada ah ayaa lagu soo qaadaya waxba la isku qarin maayo caaway dhaliishuna waxba ay toosisaa daacish xilligan waxay raadinayaan gurmad ciidan ayay raadinayaan xilligan waxay raadinayaan dadkii ka dhintay cid u bedesho booskooda ayay raadinayaan maleeshiyaadkii ugu badnaa oo iska dhigaya qaxooti oo iska dhigaya mataqaanay tahriib oo Oromo ah iyo Itoobiyaan qowmiyadaha kala duwan ayaana jagboyntiyada soo dhaafaya waxay marayaan caaway bari salkiis wasaaradaha ay qusayso oo uu mataqaanay ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha Juxa fariintan gaarsiiyay maalin hore dhaxaysan waxaan ku qaadnay dhalinyarada jamaahiirta reer Puntland waxay ku qaaday mudaharaad wasaaradda arrimaha gudaha warqad buu soo saaray waxaad moodaa Juxa nin wariye ah nin wariye baa moodaa taariikh bilaaya waxba dhacay mataqaanay 78 baa halkan ka galnay sheeko aan loo joodinay SSDF fi khiyaali buu ku laabtay durbadii gaarsiye fariintan maadirayaal wasaaraddan hadaadan mudana wasiir shaqadeeda ka soo bixi karin iska casiri aadiyad sidoo kale laamaha ammaanka ee taliska gobolka Nugaal iyo gobolka Bariga gaarsiye fariintan iga fogay arintan waxay ka socotaa oo mataqaana ii wakiishay ciidamada difaaca Puntland oo dhahay annaguna ku dhiman mayna buuraha gurmadkii daacishna dhulka yaga checkpointiyada inta ooda laga soo qaado soo mari mayaan fogaya muuqaalka la igreeshar garay YouTube-kana ku soo biira aad baad u mahadsantiin aynu ku bilowno mar rabo inaan wareerin ku daaliyo waxaad ila aragtaan halka xal marayo nimanka hadda maalintii dhibtu la kaxeeyay qorshe ma lahayn miya istiraatiijiyad lama dhisin miya xuduud ciidamo lama geen miya waa kuwan iyagoo tarab ah Nugaaliye la isla soo dhaafiyay mudug bari salkiisay sii marayaan halkan waa Carmo ila arag يا عودك انك هوينين بالود عودك انك انت قري حاجه سكوريسا قري نيدي بنتو هوينين انا عاوز نقض العرض عودك انك هوينين بالود توبي ما جوتني توبي داعش توبي ما جوتني يا aaway laamihii ammaanka gaar ahaan booliiskii gobolka Nugaal iyo Mudug xuduudan degmada Bursaalax iyo gobolka Mudug uu la wadaago dawlad deegaanka waxba ma yaalaan miya ciidamo ma joogaan miya haddayse joogaan maxay u shaqeyn waayeen waa dareemayaa waa la oranayaa ciidan baa jooga kuwa canshuur ka qaato waa la oran doonaa laakiin si hadday joogaan maxaa loo maxaa shaqo looga qaban waayay aaway jagboyntigii Garowe markaan anagu sii galayno inaanu qof wacanna maahan aan la gali karin magaalada Garowe Ramadan ayaa fasaxaya xabashadan ayaa soo gudbinay dadka aaway laamii ammaanka gobolka Bari Nugaal iyo Mudug macnaheedu ma waxa qorshaha ciidamadu ka shaqeynayaan iyo waxa rag u dhimanaya waxa saraakiisha u dhimanayso waa wax dabada ka dalola weel dabada ka dalola Soomaha waxa jirtay warbixin dhawaan daacish soo sareen sida ay noo caawiyeen ajaanibta shisheeye gaar ahaan qowmiyadaha Itoobiyaanku ma malaysan kartid bay ku leeyihiin
maantayna waxaa la marayaa in boqolaal tarab raggii maalinta dhowtay inta dadka indhaha dadweynaha la iska sii jeediyey haa Puntland oo raaftay inay maantay sii marayaan war waxba ma qarsoono hooy hagardaamada ka daay wiilasha dhalinyarada ah wasaaradaha shaqooyinkan le iyo talisada shaqooyinkan lena shaqooyinkooda ha qabsadaan ummadana yaan la lugoyn ummadda yaan la lugoyn saraakiil amniga aan la xiriiray waxay ii sheegeen in daacish ay jabeen xilligaana ciidan ay rabaan maxaa u diidayo buurahaas intay rag u soo dirsadaan in loo soo looxiyo ciidamada ilaa waa ciidan nimanku waxa halkan wada mari waa wada nine maxaa diidayo oo ay tababar geliyaan durbadiyo macnaha dagaalka Puntland ay ku jirto ma iyada sii dheeraynayso Puntland ba dagaalka sii dheeraynaysa war waxaas aqli ma ahan war wadankan sirdoonkiisa iyo mataqana ilaamihiisa ammaanku aad bay u kala dhantaalan yihiin war shaqo saas kuma haysaan war wasiiradow war arrintan ka hadla wasiir juxa ninkan shaqadiisa ma haysto war talisada booliiska nugaal mudug iyo bari waa kala dhantaalan yihiin wallahi waa kala dhantaalan yihiin aadiya ha marka hadhow mataqana dhaliishaas oo kale la soo bandhigana ba hala kala dhaho marka kalena ciidamada mataqana ayadeer afka lama xiri karo dadka annaga runtii idin sheegay ha wixii nacamlaynayo iyadoo suuroonaysa iyadoo u taala laakiin waxaan waa xaq way dayacan yihiin kontarooladu waa dayacan yihiin jagboontiyadu waa dayacan yihiin sababta maxaa halkaas soo gaarsiiyey baabuur waaraada ah baa lagu soo guraa oo wallaahi ah rag bayna shaqadooda waxaan helayaa xog sheegaysa inay daacish arrintaas ka shaqeeyeen waaraada baabuur lagu soo guray idinku noo daadiye idinku carme eriyada keena la yiri bas gobolka bari idinka keena waxba idin kama gelin nin walbana lacagtiisa loo shubo waxaanu hayna ciidaasi ka badan yihiin aanu la turayno shaqa dadkan ha laga qabto dadkan checkpointiyo jooga dadka shaqaysan dhalinyarada diyaara joogtay ha loo dhiib oo wasiiradan wada madaxa cad ee 9ka SDF khiyaali ka sheekeynaya ku nool iyo balaayo xilli hore lagu kala tagay war saaka ajnabi Marookaan dhulka ku haysta SDF rag bayna wax kala muteen maxaa ku liqdaaray SDF maxaa SDF ku liqdaaray ninka maanta ku haysta Suuriyaanka ma jeedid miyaa wallahi buu SDF aqoon suudaa saxaabad kaaga dhufanaya war wasiir jooga shaqadaada qabso war shaqadaada qabso war waxaan aday dantaada tahay ma tayfiiba adigu tahay taleefon wuxuu loo ordiyaa mikrofon iyo kaamiro maxaa ka mikrofon iyo kaamiro ugu isaga wariyaal bay Puntland leedahay Puntland TV taariikhaha loo dhiib adiga maxaa kugu taagay shaqo sidii kaamirooyinkan iyo wariyanimada shaqadaada qabsaniyo checkpointiyada hal adkeeyo lama amaanku fadhiga ka kacaan sidaan aqli ma ahan waa hadlayna inta dadka xaq aan ku hadlayna waan ku hadlayna anagu waa dayacdeen fursado badan baa dayacan gobolkaas dhan baa la dayacay fiiri gobol dhan oo bari ah Puntland waxa lagu leeyahay Puntland Sooliya Sanaag maxay 15 sano u xukumi weyday maxay 15 sano Puntland Sooliya Sanaag wax uga qaban weyday maxay Sooliya Sanaag Puntland wax ka qabataa Puntland gobolkii dhammaay bari gacan kuma haysay iska daalaas caanood iyo Ceerigaabo gobolkii bari magaalada Boosaaso ka joogtay Puntland aaway gobolkii ballaarnaaye bari intay waxaasi u kuma dhiganayeen Puntland xagee u sijid waa foolxumo weyn nidaamka dawladda Puntland ku tahay dadkan khiyaali baa loogu sheekay Puntland maanta daya kama yaasha daya dhulkeennina waxaas ku jira maanta halkaas xaalkeenu maraya intaasoo askariyiintaas sargaal maxay nooga dhimatay maxay ku dhimateen wiilasha qadarka alla waa meeshiisu wiil yar oo Siiriyaan dil xagee u sijid war Sooliya Sanaag noo dambaysay wallaahi baana gobolka bari gacan ku hayn 25 kaas waani ahaanay ku tahay madar reer Puntland dawladdu islaamiga ma dhaafisanayn gaalkacyo Garowe Boosaaso qarbi dawladdu intaas islaamigaas fuushanayd magacyaan wixii lacag shacabka canshuurta laga qaadan xamar baa la aaday ilaahay baa idin ku dhaarshay ka hor khiyaali baa lagu noolaa gobolkii dhammaa ee bari gacan lagu hayo hor maanta waa kaas buuriis amni ahaan gobolkii Puntland ku fashilantay ma taqaanay siyaasad ahaan iyo sirdoon ahaan Puntland caadi u fashilantay waa kala dhantaan tahay
tagboyntiyada furan meel kasta furan meel kasta la iska soo galaya wada kasta furan cidna kama shaqeynayso khiyaali meel ba sawirro lagu dhadhajin hebel baa la iska lahaa been ummadda masaakiinta ana waxbarasho caafimaad ma helaan waxbarasho free ma helaan oo caafimaad ma helin oo wax qofkii ninkii meesha yimaada baa wax guranayay khiyaali maxaa naga xamar naga galay xamar dadkeeda jooga maxay waxba naga ma geeyay maxaan 25 ka sano Puntland maxay xoog doofaar ka dhigay dadaalkoodii wariya dalkan lagu mashquulo wariya khiyaaligan iyo faankan iyo beentan hal la joojiyo oo xaqiiqada dhabta Puntland ha wajahdo Soomaaliya sanaag iska dadkoodii baaba joogay iyagu markii dambana cadowga iska dul saaray goboladii Puntland lagu dhisay gobolkii bari baysan gacan ku hayn ku jirin ana runtii sheegay way nacayaan xaqiiqada reer Puntland laakiin way liqayaan waxaad ku liqaysaan baan idin sheegay oo cadeyn dhowr iyo 20 sarkaaliyiin taas oo ciidana kaama dhinteen hadii gobolka uu gacan ku jiro wiil yaro garjo qabsano Syria ka yimid maanta kuma dagaalamay kuma mintid ma la iibsaday gobolka bari mar hadday wax kale aynaan ogeyn hadday jiraan oo la iibsaday Marookaan laga iibsaday hal la soo sheego laakiin se gacan kuma jiro Puntland gobolka bari iska daa Soomaaliya garawo iyo gaalkacyo iyo Puntland waxay ka jirtay Qardho iyo Boosaaso bas meel kale ka mid afarta magaalo ka jirtay waxaan leeyahay hoos in hal loo eego sirdoonka hal xoojiyo xuduudahan iska